Turkiga ayaa sanadihii ugu dambeeyay horumar baaxad weyn la ka sameeyay dhanka warshadaha difaaca waxaana sidaas darteed Ankara ay haatan doonaysaa inay noqoto mid doorashooyin buuxa u haysata noocyada kala duwan ee difaaca militariga ee hawada iyadoo ay u dheertahay inay ilaheeda dhaqaalaha ku kordhiso dakhliga ka soo xarooda iibinta hubka kala duwan ee ay dibadda u dhoofiso oo ay ugu horeeyaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo nidaamka difaaca hawada ee u gaarka ah dhoofinta farsamada warshadaha difaaca ee Turkiga ayaa sare u kacday 248 milyan oo dollar sanadkii 2002 iyadoo oo 2019 gaartay 3 bilyan oo dollar waxa intaasi u dheer in shirkadaha iyo warshadaha difaaca ee militariga Turkigu ay darajo sare ka gareen liiska shirkadaha militari ee ugu fiican caalamka shirkadaha kala Aselsan Baker FNSS Hafilson ayaa ka mid ah shirkadaha hormuudka ka warshadaha kala duwan ee ciidamada qaranka ee Turkiga haddaba waa maxay nidaamka difaaca cusub ee hawada ah ee Cyber kaasoo ay Turkigu kaga kaaftoobayaan midka Ruushka ee S-400 Turkigu markii ugu horeysay waxa uu toddobaadkan ku guuleystay tijaabinta gantaalka ridada dheer ee difaaca hawada qaabilsan ee lagu magacaabo Cyber kaasoo ay saameyntiisa iska kaashadeen dhowr shirkadood oo loogu talagalay warshadaha difaaca ee Turkiga gantaalkan waxa uu ku soo aadayaa xilli Turkigu si weyn ay ugu baahan yihiin nidaamka difaaca hawada isagoo dabooli doona baahida degdegga ee Turkigu u qabaan si ay u horumariyaan awoodooda difaaca hawada ee gudaha maadaama gantaalku uu yahay mid awood sare leh nidaamka Cyber ayaa ah mid loo dhammaystiray agal walba oo u baahan yahay tijaabintiisa ayaa lagu guuleystay waxa lagu rakibay raadaar casri ah oo isaguna gudaha Turkiga lagu farsameeyay kaasoo ay samaysay shirkadda warshadaha difaaca Turkiga ee Aselsan gantaalka ay Turkigu tijaabiyeen waxa lagu magacaabaa Cyber Block 1 waa nooca ridada dheer kaasoo gaari kara fogaan dhan 70 kilomitir waxa lagu horumarin lagu sameeyay gantaalkan markii la soo saaray nidaamka kale ee difaaca ee la yiraahdo Hayzar kaasoo fogaantiisu ay tahay 15 kilomitir waana nooca ridada gaaban fogaanta 70 kilomitir ee uu gaari kara nidaamkan cusub iyo awoodda uu leeyahay burburinta bartilmaameedyada cadawga waxay Turkiga ka caawinaysaa inay dhanka difaaca hawada kula tartanto Ruushka oo haysta nidaamka S-400 arrinta muhiimka ah ayaa in gantaalada lagu magacaabo Cyber iyo Hayzar ee difaaca hawada ay u wada shaqayn karaan si wadajir ah iyadoo nidaamkan cusub beegsan doono bartilmaameedyada fog halka Hayzar isna loo adeegsan doono kuwa dhow kuwaasoo Turkiga siinaysa mandiqad ka aamin ah halis walba oo ka timaada dhanka cadawgeeda shirkadaha kala Aselsan Rakatsan iyo Tobek ayaa si wadajir uga shaqeeya fulinta hawshan adag iyadoo haatan ay wali sii wadaan horumarinta mashruuca gantaalka horumarinta lagu sameeyay nidaamka cusub waxa uu ku beegmayaa xilli dunida uu maanta ka jiro tartan adag oo dhanka gantaalaha difaaca hawada ah dalalka yaryar iyo kuwa haatan soo koraya misna aan haysan nidaam difaac ayay tani fursad weyn u tahay maadaama uu noqon karo tartan furan iyadoo dawlad walba oo haysata nidaam difaac maalgashi ku samayn doonto nidaamkeeda kana iibin doonto dawladaha kale si ay dakhli fiican uga helaan ka hor nidaamkan Cyber dalalka Ruushka iyo Mareykanka ayaa ku haystay gantaalada difaaca hawada ee ugu fiican iyagoo kala haystay THAAD oo Mareykan leeyahay iyo S-400 oo Ruushka ah waxayna meesha ka marnayn oo Israa'iil oo dhankeeda horumarin ku samaysay nidaamkeeda Iron Dome dhanka kale madaxa warshadaha difaaca ee Turkiga Ismaaciil Demer ayaa sheegay in dalkiisu uu qorsheenayo in nidaamkan toos loo hawlgeliyo marka la gaaro sanadka 2023 iyadoo lagu wareejin doono ciidamada qalabka sida ee dalkiisa war farxad weyn leh ayuu u muujiyay Ismaaciil waxaana hadalkiisu ku soo gabagabeeyay inay halis walba oo soo wajahda haatan kadib ku burburin doonaan gantaalada cusub ma jeceshahay inaad barato quraanka kariimka ah iyo culumta shareecada ugu kaalay markaska Nuurayn online oo baro adigoo gurigaaga jooga quraanka higaada iyo culumta kale islaamka wixii faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda